حونا بنتلان وجي وسات كيس قاد كي بنتلان وحري ويجي كليا سود كرا هوري waxaan ogaanay diyaarad la dhaho 5 star wax noocaasa red star in gudaha Puntland laga joojiyay inayna Puntland qeybteen ma ahay waa caadadeen sanadka ugu dambeeyay ninka kursiga jooga inuu wax kasta uu xagga marsado استغفر الله انت جعلها استغفر الله دان ماب gudoomiye waxa rabay wariyaasha kii xanuunsada kii duruf soo wajahdo kii la xiro inuu u doodo gacan qabto war cayn sano oo lacagta dhowrka 100,000 ku soo qaadaysa wariyaasha Puntland war gabadhaas qoonta kasi sawir kaliya hala soo gelin qoonta kasi assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh soo dhawaada Soomaali Maxameday intaan u gudagan barnaamijka aan idin wado waxaan si xushmad ku dhahantaa idin ka codsanayaa haddii muuqaalkan ku soo gaaro inaa marka hore gacanta kuma gooday aan leeg noo saartid inaa share gareyso asxaabta la wadaagtid bogga follow YouTube ka Qardan Media subscribe commentiguna waa aragtidaada ku wada hadlayno waxaan rabaa inaan idin ka dabageeyo madaxweynihii Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo jifidiisa u xiray gudaha Puntland in iyagu ay qaad ka keeni karaan inaanu taxliilino oo buuqa taagan yahay baan rabaa inaan idin ka dabageeyo iyo sababta uu sida u sameeyay madaxweynuhu sidoo kale waxa rabaa inaan ka hadlo gabadhan halkan ka aragtaan waxa gabadha la dhahaa Nadar Garaase Ilaahay caafimaad taam oo sariic ah siiyo dhowr habeen kadib aan program halkan aan ka sii daayay ku soo qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Deni baa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay lacagta kula ah oo 20,000 oo doolarka Mareykanka gaaraysa uu ku taakuleeyay gabadheena isla maanta waxay ka duushay garoonka caalamiga ee Garowe iyadoo caafimaad dalka dibadiisa ku baxday marka la soo dhawaada aan ku bilowno marka hore madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni waxaan kurto aad ugu bogaadinayaa in uu Nadar Garaase oo wariyaasha reer Puntland kamid ah oo gabar dalka u soo shaqeysay oo sawir qaada ah oo gobolada Puntland meelo badan tagtay oo quruxda Puntland soo badhigtay xanuun baa soo wajahay Ilaahay caafimaad sariic gabadha marka horaasi aan u duceyno maanta lacag 20,000 gaaraysa doolarka Mareykanka oo buutaa kula u siiyay isla maantana garoonka Garowe ka duushay marka waxaan leenahay madaxweyne wax shaqooyinkaas waa kugu bogaadinayna nadarna waxaan leenahay Ilaahay caafimaad dalka ugu soo shaqadan caafimaad qaba halkan ninka la sawiray jaamacadda Baraani marka laga yimaado waxa la dhahaa cayn sane gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland map gudoomiye waxa rabay wariyaasha kii xanuunsada kii duruf soo wajahdo kii la xiro inuu u doodo gacan qabto war cayn sano oo lacagta dhowrka 100,000 ku soo qaadaysa wariyaasha Puntland war gabadhaas qoonta kasi sawir kaliya hala soo gelin qoonta kasi gabadha oo gabadhana intaasan cayn sano u dhaafin maayo waxaan u gudagalnaa waxaan u gudagalo madaxweynaha Puntland oo jifi wasaadkiis qaadkii Puntland u xiray oo ayay kaliya soo dejin kara hore waxaan ogaanay diyaarad la dhaho 5 star wax noocaasa red star in gudaha Puntland laga joojiyay inaysan qaad soo dejin karin oo garoomada Qardho iyo Gaalkacyo door muhiim ah dhismayaasha ka qaadatay haddana madaxweynihii waxa leeyahay jifidiisu qaadku xiray balaan wada daawano kiilaba ka soo socda mid kamid ah ganacsatada qaadka Qardho oo maanta baraha bulshada aad loo wareejinayay oo tiri madaxweyne Deniyow استغفرنا انت كنت تاغيرسنا سو دو ايان جواسي انا عندنا اسك قرينين waxaan caalimka u sheegayaa inay kaligood noolaadaan raaska madaxweynuhu yahay gabadha ka soo jeeda majinta xuduudka qaadka shalay wuxuu ahaa $8 dad baana lahaa oo $8 ku ahaa maanta $18 bay dhaheen waxay taas ku tusinaysaa inay ku faanayeen dawladda hadda jirta inay ku faanayeen Axmed Ciise Maxamuud oo aysan dad iyo dal midna aysan u baahnayn waxaan gacanahaana ku dhagay waanu shaqaysan weynay waanu saburay waana la qabtay waxaan qabtay gabadha yar oo madaxweynaha raaskooda baan qabtay madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne hadda shacabkaaga eeg weydi استغفر الله انت جعلها استغفر الله انت جعلها baan leeyahay waxaan u sheegayaa caalimka qof iyo codka la yiri hal qabto qof iyo codka hal qabto laakiin ku darsi maya dalka baabaaya dadka
هذا شعبك بنتنا وكاس قيلة كييريسا أفكي فرتين وجناح طريقات كوحليهن مدحوينه بنتلان جفديس ويل سيد أيام تري ويل سعيد دني جفديس أبوقات كوحري وكاس مركا وحنا لنا هدي جودهنا بنتلان دي قيبتين ما هي وعادين سنة كوجود ما ينك كورتي الجوجة إنه واحد قصته وحاجة مرصده هدو وده له قندراس كاو حسين يعني غير كيسة فرولان أوجين جاسبا أوجين لحوين سعيد إن هذا واركتان إله بيرك بين مشروع ير أو بندا جودها بنتنا شعبك بنتنا وسوقاته وحلو حلا قف هيركا تا إن كبح دونا رجين دونا إن شاء الله أو مدحوين ياش الدماء عينو دوران دونا الرج تلك يديك وشقين دونا وإنسان لحجعله يعني جعله سيسون كجرين marka aad iyo aad baa Soomaali Maxamed ay muuqaalkaas share iyo like iyo comment isugu dara bogga follow YouTube ka subscribe isma dhaafno